gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID mudane cabdinaasir maxamed xasan buuni oo warfidiyeenada kula hadlayay hoteelka Rays ee magaalada Boorama ayaa wuxuu dhambaal tacsiyo u diray alla naxariistii jannaha ka waraabiye eegas wasiirkii qorsheynta ee xukuumadii daahirayaale handooyinku dambeysana ka tirsanaa mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani oo habeenkii xalay ahayd dalka dibadiisa ugu geeriyooday gudoomiye ku-xigeenka ayaa dhambaal tacsiyo waxa uu diray ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo qaranka Soomaaliland oo ka baxay marxuun alla naxariistii jannaha ka waraabiye Cali Sayare waxaan halkan ku hadlaya magaca gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Xuseen magaca hoggaanka xisbiga dhammaan bahweynta xisbiga UCID meel kasta joogan waxaan halkan saaka tacsi uga diraynaa shacbiga reer Soomaaliland guud ahaan ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo carruurtii ka geeriyooday wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Riyaale marxuum Cali Ibrahim Maxamed Cali Sayare oo dalka dibadiisa ku geeriyooday xalay run ahaantii waxaan qaranka Soomaaliland leenahay Ilaahay samir kaamil ah ka siiyo shacbiga reer Soomaaliland meel kasta oo joogan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynaynaa inay u soo duceeyaan inuu Ilaahay dambigiisa dhaafo inuu Ilaahay jannooyinkiisa ku manaysto waxaan ugu ducaynaynaa ducadii diiniya soo aroortay markan oo kale la isku tacsiyeeyn jiray inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma wal tahsib wal tasbir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun haddaan in yar dul istaago marxuum Cali Sayare wuxuu kamid ahaa odayaasha qarankan dhidibada u taagay wuxuu kamid ahaa ninkii salka u dhigay wasaaradda qorsheynta qaranka muddadii uu joogayna lagu xusuusto shaqo wanaagsan iyo maanta qorshaha ay dawladda iyo xukuumadii kala dambeeyay ku shaqeeyaan wuxuu ahaa intan dambana oday ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliland gaar ahaan xisbiga mucaaradka wadani iyagana tacsi gaar ah ayaanu xisbi ahaan gaarsiinaynaa shacbiga reer Soomaaliland waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala samir kaamila Allah inaga siiyo isagana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waynu ka wada daba tagi doonaa inuu Ilaahay jannooyinkiisa ku manaysto dambigiisana Ilaahay dhaafo jannatul firdaws ala Ilaahay geeyo carruurtii uu ka tagay iyo xaaskii uu ka tagayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu samir kaamila ka siiyo maxabada uu hayeen Ilaahay iimaan ugu bedelo shacbiga reer Soomaaliland samir kaamila Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt wa Cabdirasaaq Cumar Micaad Awliyo shabakada caalamiga ah ee Boorama News